dhallinyaranimadu waa waqtiga ugu fiican ee nolosha ka mid ah. waa waqtiga uu qofka bini aadamkii dhiso adduunkiisa iyo aakhiradiisa. waa waqtiga kaliya aan cidila lahayn qofku markuu weynaado xidhiidhkiisa tira bata, mujtamaca xidhiidhku la leeyahay ku tira bata, marka waqtigiisa inta badan isagu ma laha, dad kale leh. laakiin qofka dhallinyarada ah waa qof isagu hanta waqtigiisa dhammaanteed, waana waqtiga ugu fiican ee uu qofka bini aadamkiisa dhisi kara adduunya aakhiradiisaba. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو آخرة أنك دليرة كورمي وحكت المامي دتكي عرش الرحمن كهرسنا يا مالنتا قيامه دتكو كديدين هي